aan ku hormarno jenaraal khalifa xaftar maalintii shalay wiilkiisa ayuu xil u magacaabay taliyaha ciidanka bari ee dalkaasi Lubnaan khalifa xaftar ayaa wiilkiisa oo lagu magacaabo sarreeyo guuto saadaam wuxuu u magacaabay inuu noqdo ku-xigeenka taliyaha ciidamada ku sugan dhanka bari ee dalkaasi Lubnaan qoraal lagu daabacay barta Facebook ayaana lagu sheegay magacaabistan inay timid kadib markii odaga la tashiyo badan uu sameeyay saadaam xaftar waa 34 sano jir wuxuu noqonayaa marka taliya ku-xigeenka ciidamada waxaana arrintan ay ku soo beegantay sanad guuradii 85aad ee ka soo wareegatay aasaaska ciidanka dawladda Liibiya marka ninkan wuxuu yiri wiilkayga ayaa xilkan ay qabanaya dhanka Pakistan markaan eegno maanta iska horimaad ayaa ciidanka Pakistan iyo koox hubeysan ku dhex maray xuduudda dalka Afghanistan afartii maalin ee la soo dhaafayna Pakistan waxay sheegtay ku dhawaad 50 ruux oo ay ku tuhmayaan inay amni darrada qayb ka yihiin inay ku dileen deegaanada dhinaca xadka howlgaladan waxay sheegeen inay kaga gol leeyihiin maleeshiyaadka hubeysan ee halkaasi ku sugan tirada dhimashada ayaa sii korodhay kadib markii maanta iskoorimaad aad u adag uu dhacay inkastoo ciidamada ammaanka ee dawladda ay beeniyeen warar soo baxaya oo dadka deegaanka ay baahinayeen oo ah in la bartilmaameedsaday kooxo aanan ka tirsaneen maleeshiyaadka hubeysan ee ku sugan gudaha dalkaasi gaar ahaan deegaanada dhinaca xadka gobolka loo yaqaano North ama waqooyiga Waziristan waxyaabaha ka soo kordha kula wadaagi doona insha Allah Israa'iil waxay wajahaysaa kala qaybsanaantii niyadjabkii iyo sidoo kale kala guurkii ugu adkaa ee dhanka siyaasadda iyo hoggaanka militariga waxaanay ka soo horjeedaan qorshaha ra'iisul wasaare Netanyahu uu doonayo mar kale in uu ku qabsado magaalada Gaza waxaana lagu tilmaamay dayacaad la doonayo mar kale in la dayaco ciidanka amniga sida warbaahinta Washington Post ay baahisay Netanyahu waxa uu soo jeediyay in hoggaanka militariga sida ugu dhaqsiyaha badan ay u dhameystiraan qorshaha lagu qabsanayo magaalada Gaza si dhaqsaana magaaladaasi loo qabto laakiin cadaadis weyn ayuu Netanyahu la kulmayaa markan xitaa qaar ka mid ah saaxiibadiisii midigta fog ayaa ka soo horjeeda aragtidan oo Bezalel Smotrich wuxuu taagan yahay aragtidani waa mid haadaan dheer ka ridaysa ciidanka amniga Netanyahu in gacanta lagu dhigo magaalada Gaza wuxuu aaminsan yahay inay tahay xalka kaliya ee kama dambaysta ah ee lagu soo afjari karayo xoogagga iska cabinta ee Hamas laakiin saraakiil sarsare oo ka tirsan ciidanka oo uu ugu horeeyo taliyaha ciidanka arrintan uu ka soo horjeedaa waxaana uu aaminsan yahay aragtida ah in howlgalkaani culus ay horseedi karayso mar kale fashil dhanka siyaasadda iyo militariga oo lamida kii dhacay sanadkii 1982 markii duulaan lagu qaaday dalka Lubnaan